الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، عموما taariikh marka laga warramayo faa'iidada koowaad ee taariikhdu leedahay waxa weeyaan waa lilcibra, waa in lagu waayo arko. sida awgeed baynu odhan karnaa qur'aanka kariimka ah in thuluthba ku dhodhow ama 3 meeloodoo meel ku dhodhow ayaa qisas ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qiso kaga warramaya. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. sida daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala dhul badan ayuu qur'aanka kaga warramayaa qiso. qisada qur'aankuna asbaabo badan bay u soo aroortaa. waxaase ugu muhiimsanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur'aanka ku tilmaamayaa qisaska in laynoogu sheegayo inaynu ku tafakurno ama ku waaya aragno, inaynu ka qaadanno cibar, inay noqoto wax lagu waayo arko. cibratun liuli lalbaab lacallahum yatafakkaruun. markaynu u fiirsanno markaa qisadu sideedaba waxa ugu quruxda badan lee ku jira waxa weeyaan in lagu qiyaasto wakhtiga aad nooshay iyo duruufta aad ku nooshay adigoo ka qiyaas qaadanaya umamkii hore iyo wixii ku dhacay noocan adigoo aad u nooshay wixii la mid ah. waayo basharku sunna ilaahay u dejiyey subxaanahu wa tacaala joogto ah. sunnadaasi waa sunno haabita bay culammadu ku tilmaamaan. haddaad samaysana inaad same helayso, haddaad xumo samaysana inaad xumo helayso. maadaama ay caynkaasi tahay, qisasku waxay u baahan yihiin in badan inaynu fiirsanno. qur'aankana in badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramay. qiso nebi, qiso fircown iyo gaal, qiso wadaadda inxiraafay, qiso yacnii kullu shay. baab kastoo aad qiso ka egto qur-aanku wuu ka warramayaa. taasi waxa ay tilmaamaysaa inaynu u baahannay qiso dhammaanteedba, innagoo laakiin isdu taagayna mawaadic alcibar, meelaha cibradu ku jirto ee u baahan in inta badan la eego amase la isdul taago. waxaa kaloo mudan oo qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan inoogu tilmaamaya inaynu umamkii inaga horreeyey taariikhdooda daraasayno. waxay dhahdaan casri kastoo la joogaa wuxuu u badan yahay cusuurta dambe waa طabca jadiida likitaabin qadiim bay yidhaahdaan. haddaad taarikhda dib u fiirsato baalan la mida kanaad nooshahay unbaad arkaysaa, oo si kastoo aad u qiyaasto ama aad u qiimayso la mida. idan bay yidhahdaan waa طabca jadiida, kitaab qadiimoo hore loo soo maray. waayo dunida horey u soo mareen dad taalixiina iyo dad saalixiina, dad xunxun, dad wanaagsan, nooc kasta horey u soo mareen. sidaa awgeed waxay u muuqanaysaa taariikhduba inay u eg tahay طabca kitaab qadiimoo hore u jiray. ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ina leeyahay qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lardi fanduruu. ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala idinka hortiin waxaa tegey sunan baa dhulka tegey ee fasiiruu fi lard dhulka socda baa la yidhi, oo fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin. fasiiruu fi lardi qur-aanka intay ku soo aroortay haddaad u fiirsato aad baad u tacajubaysaa. aayaad aad u tiro badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramaya. qul siiruu fi lardi uma anduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يعني إلهي سبحانه وتعالى هدينا النصوص تكسو أررتي فسيروا في الأرض يقرأ أيها كبضا إن محاضرة لغو أخريه وإلهي ونالي هي قولدي دين كهر ريسيبا وقار ألا هلاقي وللكافرين أمثالها سيدا أوجد تاريخ الدراسة وباهنتي دراسة أن تمتع هين بوباهنتي دراسة أن كرا حيث قرا هين إن لسدول تاقم مالها عبرة وين لبوباهنتي أممكو حتى دتك أميينتي حتى أممك أن وحقورين انت بدن إيه كوا وحقورين بدن وكم دبا على مدى جراي تاريخ تكو علامة صدان مثلا وحا ما هذا الله يراهده ودعضي قصة دعضي oo weer yaro kooban lagu xifdiyay oo markastoo dhacda la mid ay timaadaba mahmaahda la sheegay waxa la yiraahdaa ninkan hebel waa aftahannimadu waa maxay wadciga hadda yaala ayuu wuxuu ga qiyaas qaadanayaa dhacdo hore dhacday oo ku jaan go'an sida daraadeed ba mahmaahda gabigeeduba waa calaamad taariikhda la calaamadiyay waa dhacdo kamid ah dhacdooyinkii taariikhda oo la calaamadiyay gabayga la mid ah gabayada inta badan taariikhda waa lagu calaamadsadaa oo dhacdooyin dhacay oo taariikhiya ayaa gabay yaro koobani uu tilmaama qisaad u tiro badan leh walidaalka waxaynu u baahannahay sideedaba qiso dhammaanteed inaynu aad ugu noqonno taariikh gaal taariikh muslim mid walba waa ilaahay quraanka mid gaal iyo mid muslim oo kaga waramay مواضع العبر كان نسدح تاجنا أما يسك تاجنا درس كان ما أنت لقون دينا وحلا يدينا كور رمه تاريخ أندلس تاريخ ده دسي ساعد يبرنا أنا وشجعنا قرن مايا أندلس دولة الأموية لبي سجاشن كي هجرية ده أيالا فرطي طارق بن زياد يا موسى بن نصير قائد كان لورين جري طارق بن زياد ودري لبي سجاشن كي بيبلابين فرشدي أندلس يوجوه الرئيسي أندلس ووطن كي يرى إيبيريا لورين جري أما وجزيرة ما أنت عنكا إسبانيا برتغال أيو بدنيهين غرناطة وآخر مملكة إسلامية غرناطة مقالة هذا الله يرهدا مملكة دي قدام بيسي إسلامية هداي كبحضي سداد بقول تضبي سقاشن كي محرم كودي دي بالله صار آخر الملوك أبو عبد الله نكي هو يدي قبل يقول رسائل هاي بغرطويات سيد الرجع إلى لين ويدي سيد الدمر كوجو قبل أبو يوترينيس يبكي مثل النساء قبل يكشرو وهي تلمام الشهادات سيد الرجع إلى شنكر ويدي سيد الدمر كوجو وحليني مركي وجودن بيسيو كدقاقي معاهدة أيوك كجب حي معاهدة مركي لك على الساحة ودونيه فولو يسأكت أقول دبوا قصرية دي سي وحيسي مركاسائل مكسود ده ديبال ليري هو يدي بمركا ويرد تنكتري وتاريخ مركا سداد بقول يشان سنضات ككوبا سداد كدقيقين ليسي هدانو غيبيو طبعا كي سنضات بحال دقيقان وهيا طبعا كي سنة تاريخ ده كم مدابا هل دقيقة يكسو بيجمية مركا وأدكتي تاريخ أندلس إن كجور رنّه سدات دقيقة يوحلا مده عموما أندلس لبي السجاشن كي لقى بلابه إلا بقول يو سداد يصدم كي هجرية ده وحيهوس من يسي الخلافة الأموية مركي خلافة الأموية يدعدي الدولة العباسية يماشى قبصتي ويل دلني يرى أمويين تكمدا ayaa dilkii ka baxsaday walaaladii la dilay isagii baxsaday wuxuu socdaba wuxuu gaadhay wadankaasi Cabdiraxmaan Idaakhil oo saqar Quraysh ninka loo bixiyay dawladdaasi isaga dib u asaastay isagoo qariib buu wadanka tagay oo waxba haysanin laakiin dawlad buu muddo yar kaga dhistay dabeetana dawlad aad u ballaaran ayuu dhisay dhowr iyo 30 sano baan filayaa 4 iyo 30 sanadood ayuu xukumayay
wakhtigiisii intii badnayd thawraad bay kaga dhacday 25 thawradood ayaa ku kacday 34 sannadood ee uu maamulayay akhiiran 170 meelaha markay maraysay ayuu waddanku istiqraarkiisii sugmay madiinada caanka ee madiinada zahra la yiraahdo qurtaba ku taala ee taariikhda mudankii ugu caansanaa dunida ahaan jiray ugu quruxda badnaa ayuu waqtiga dhisay masjid qurtaba oo masaajidka weyn abuu bilaabay ilaa iyo markii dambe masjid qurtaba sidii loo weyneynayay 1200 oo tiir buu markii dambe lahaa masaajidka tiirarkiisu bilariskiisu 1200 isagoo 1200 bale oo kiniisada ayuu haddana ka dhisay qurtaba wali masaajidkii waa dhisay laakiin hadda waa kiniisad taariikhdaasi dheer ee waddankaasi leeyay waa taariikh maasi tiro badan leh ama meelo madmadow oo aad u fool xun oo tiro badan leh meelo aad u qurux badan na leh waa taariikh markaasi runtii daraasadeedu ay tahay taariikhaha ugu fiican in la daraaseeyo waayo waa taariikh isbedbedelkeeduna badan yahay asbaabta keentay isbedbedelkana markiiba aad isha ku dhufanayso aan wax badan oo u fiirfiirsi badan kaaga baahnayn marka aan soo koobo haddii aan taariikhdan maraaxil u qaybinno marxaladda hore waa marxaladaasi dhismaha koowaad ee ninkaasi dhisay kadib inaanu dhalay baa ka uga dambeeyey kadib inan kale u awowyaha uga dambeeyey qolada hore waa iska fiicnay laakiin waxaan jeclahay meesha u baahan inaynu si fiican u daraasayno inaan isu soo dultaago taariikhdani markay muddo socotay ayaa ninkii ugu dambeeyey wakhtiga aan rabo waxaan rabaa cahdigii muluku tawaa'if ay talinaysay cahdigii ugu fitna badnaa inaynu tagno ee taariikhdaasi ka mid ah waa cahdiga loo yaqaano muluku tawaa'if ama boqortooyooyinkii طائفaadka yaryar ee kala nooca ah muluku tawaa'if waxa ka horeeyay laba boqor oo aad u waaweyn waa cabdiraxmaan الناصر ama cabdiraxmaan الثالث taariikhda bani umayya saddex nin cabdiraxmaan la yiraahdo soo maray daakhilkii iyo cabdiraxmaan kii labaad ama thani iyo cabdiraxmaan الثالث nin lagu tilmaamo iyo saddex hishaamkii koowaad kii labaad kii saddexaad cabdiraxmaan الثالث أو cabdiraxmaan الناصر ninka loo yaqaano wuxuu xukumayay waddankaasi 50 sannadood 22 jir isagoo abuu qabsaday waana mararkay ugu qurux badnayd buu waddankaasi gaadhsiiyey nin karti leh oo la kacabsi leh oo dawlad xooggan dhistay oo thawraadkii iyo wixii ka soo horjeedo dhan ka takhalusay oo ballaadhiyay dawladdii islaamka ee meesha dawlad aad u qurux badan leh buu ka tegay markaas cabdiraxmaan الناصر dawladdii quruxda badnayd ee uu ka tegay inankiisii baa dhaxlay la odhan jiray alxakam ibnu cabdiraxmaan الناصر alxakam waxaa nin caalima aqoon badan diin jecel alla ka cabsi badan dawlad deganna helay isna dhanka cilmigu isaga faafayba waa maktabadihii caalamka ugu waaweynaa ninkii samaystay 400,000 oo majalladood baa maktabadiisa ka koobnay isagu nin caalima oo faqiiha buu ahaa muddo haystay laakiin qaltadii ugu weynayd buu galay bay yiraahdaan dawladdii aadka u ballaadhnayd ee meesha ka talinaysay markuu ka geeriyoonayay inama waaweyn ma lahayn inan yaroo uu dhalay ayuu ka dhigay inuu leeyahay wilaayada isaga dabadii culamada ugu da'weynaysiisa 12 jir bay ka dhigaan taariikhda kuwa ugu yareeyana 7 jir adigu nin 7 jir meelahaasiya daadiisu هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر نكي اللي ورشري هشام الثالث نكوي قانين أما المؤيد بالله لغة المامور هشام كامركي ماشى اللو ديبي هشام المير بوها ما دام المير اسكاها وصيبه سميا معد إلى لسه سجى سلانه هويا يلبان نوكله taariikhdaasi mar rabo bitafsiil inaan uga warramo wuxuu mar rabaa mawaadicaan u dan leenahay inaan gaadho waxaa isku qabsaday dawladdiiba nin la yidhaahdo moxamed ibnu abi caamir waa nin qabiil yamana asalkiisa uu ka soo jeedo alxaajib almansuur ninka la baxay weeyaan
xaajibku taariikhda hore waa ra'iisul wasaaraha oo kale ninka uu boqorka warka kala dira ayaa xaajib loo oran jiray xaajibkaasi taariikhda islaamiga hore xaajibka laqab looma sameyn jirin boqorkun baa laqab lahaan jiray المنصور بالله وحين مقالله المقتدر بالله القادر بالله magacyadaasi boqorada lahaan jiray laakiin xaajibka iyo wasaaraddu ma lahaan jirin ninkani maadaama uu dawladii gacanta iskaga dhigay laqab uu samaystay al-Mansuur la yiraahdo isaga qabsaday dawladda dhamaanteed nimankii agtiisa soo marmarayeen uu ka takhalusay saddex nin baa la tilmaamay agtiisa ka dhawaa ma uu islaa waxbay ku qabsanayaan makiidooyin buu sameeyay bay yiraahdaan saddexdiiba uu ka takhalusay dawladii isaga qabsaday wiilkii yaraana wuxuu yidhi inay yar baa tahay cibaadayso boqorrada looma soo galo halkaa ku jir meel buu ku xidhay bay yidhahdeen inuu iska joogi jiray xataa markuu soo baxayo dumarkaa lagu dari jiray koox dumara inta la raaciyo farta la saaro barnaskan ay qaataan maxaa la yidhahdaa marookaanta iyo maqaaribta idinka arka koofiyaddan yara ku samaysan khamiiska rag iyo dumarba nooc ku samaysan bay qaataan nooca inta loo xidha baa la yidhahdaa barnaska la yidhaahdo ayuu xataa lagama dhex garan jirin bay yidhahdaan dumarkaa uu la socdo iyo kooxdaasi galbinaysa cidima arki jirin waa iska cibaadaysan jiray meeshiisaasu iska joogay ninkan la yidhaahdo alxaajib almansuur baa dawladda haystay laakiin nin aad u cajab badan buu ahaa dawladdii wuu sugay waxyaaba cajabana waa laga tilmaamaa 52 dagaal buu galay intabana wuu guulaystay culimada qaarna 54 bay sheegayaan laakiin imaam dahabi 52 ka dhigaya 52 dagaal buu galay 52 qaswe uu galayba wuu soo guulaystay idan wuxuu ka dhigay wadankii andalus loo oran jiray ee islaamiga ahaa wadan aan gaalba hunguraynin agtiisa cidi soo marin aad u xoog badan imaam dahabi wuxuu ku tilmaamayaa ninkaasi wa kana mawtuhu aakhir as-salah وأول الفساد لأن أفعاله كانت حسنة في الحال فاسدة في المآل إمام الذهبي في سيري وحورنا يا نيكا كان جاريدي صوحي هيدويد وناقا وحي وقدم بيي أعماشي سنة جاريدي سو وناقا وحي وقدم بيي بيهيد فساد كان وحي وقوه الرأيي أفعاشي سنبو يدي waxay ahayd xasana fil xaal marka waqtigan la joogo amaladii uu sameeyay amala aad u qurux badan laakiin cidib xumo dambe oo badan ka tagay waayaninkani wuxuu sameeyay khilaafo aanu khaliifku talina qolo kala taliso inaanu dhalay buu uga dhintay kiina halkii buu ka sii hayay 7 sanadood buu meelaha ku sii haystay laakiin nin saalix isaguna ahaa dawladii waxba kama xumaanin mid uu dhalay oo kale ayaa sii dhaxlay ka dambe uu dhalay nin fiican ma ahayn wuxuu ahaa nin marka hore hooyadii faranjiye tahay islaam faranjiyada dhashay islaamii waliba hadiyaadka boqorrada ay u siiyeen mid ka mid ah dhashay shangal baa la oran jiray waxaanu ahaa nin fasaad badan aad u fasaad badan ninkaas dawladii qabsaday akhiiran dagaalo iyo burbur buu isna iskaga dhintay waxa soo baxay in lagu kaco dabeetana meeshii waxa qabsaday nin cusub oo umawiyiintii ka tirsan waxa la yiri waayo shanjalkani wuxuu sameeyay khatarta kale waxay ahayd labadii hore waxa iyagu yiraahdeen anagu xaajibaan wilaayada umawiyiintii ba iskalo muayyid billahi ba qolka dambe ugu jiray war maxaa muayyidkani qolka kaga jiray buu yiri muayyidkana waa ha iska tago aniga ah buu yiri khilaafadii waliyul ahdi buu sheegtay markaa بعد المؤيد بالله انه يسوي ولايه لا ولايتنا اي wareegtay الدوله الامويه اما قريشين تنا ولايه dadku nooc ma way uga dambeeyeen laakiin ninkani waa caamiri yamaniya marka ma uga dambeynayaan dadku sidii looga dambeeyay awal waxay ku maamulayeen inay xaajibiyiin ama inay sultada yani ra'iisul wasaare inuu ka yahay nin محمد بن هشام بن عبد الجبار la yiraahdo umawiya baa lagu kiciyay dabeetana ninkaas meeshii inqilaabay waa qabsaday waqtiga kan waa ahdi fitna bilaabantay waa qarnigii shanaad iyo bilowgiisii 400 taariikhda hijrigii markay maraysay weeyaan ninkani markuu meesha qabsaday aamiriyiintii buu eriyay
meeshii buu xoog ku qabsaday waa dawladdii buu is yidhi isku dabarido laakiin looma daynin ee waxaa bilaabmay wakhti fitnaa oo madaxnimadii la isku laayo oo tiro badani dhacdo taariikhda 400 la joogo ilaa 422kii laga gaadhay waa 22 sannadood 22 sannadood 13 amiirul mu'miniin baa soo maray يعني waxaad qiyaasi kartaa markaa fitanka iyo mashaakilka taagnaa sida uu eegaya 22 sano oo 13 amiirul mu'miniin oo kala nooc ay soo mareen waxa dhacay ninkii guriga ku xidhnaan jiray mid ay walaalayiin oo boqorkii weynaa al-Hakam caalimka aynu ku sheegaynay uu dhalay al-Hakam ibn Abd al-Nasir nimuu dhalay oo Sulaymaan la yiraahdo ayaa isku dayay inuu dawladdaasi inqilaabo laakiin wuxuu furay albaab cusub oo aan taariikhda Andalus lagu aqoonin albaabka maalintaasi furmay Andalus wuxuu ka mid yahay waxyaabihii keenay inay burburto markuu arkay ninkan madaxda iyo qolada dawladda haystay inaanu babacdhigi karin ayuu wuxuu qabtay dawladdii gaalada ee ugu dhaweyd qashtaala meel la yiraahdo qashtaala dawladdii weynayd ee muslimiinta Andalus markay qabtay bilaad sakhar buura yar yar oo la yiraahdo oo badan sare ee Spain ku yaala oo qura ayaa ka harsanaa waqti dabadeed dawladda ay iska weynaatay dabeetana gudaheeda iska dishay way kala gooday Lyon iyo qashtaala bay kala noqdeen qashtaalo waa castle oo af Carabiga markay qolada Carbeed akhriisay qashtaalo akhri waa qalca dawladda yar oo meesha joogta ayuu tagay wuxuu kula heshiiyay dawladdaasi yar inay saacidaan way ka saacidaan dawladdii Qurtuba ka talinaysa in la inqilaabo ay ku wada duulaan Alfonso in la yiraahdo dawladda tan nimankii haystay wuxuu arkay fursad saciida inay tahay awal dawlad yar oo jisiya bixiso ka dawladda weyn ee muslimka xukunta buu ahaa maantana wuxuu arkayaa muslimkii oo islaynaya fursad buu arkay inay tahay waa ogolahay buu yiraan ku wada duulo waa la wada duulay dabeetana waxa laga qabsaday meeshii iyada ahayd ninkii la oran jiray Muhammad ibn Hisham ibn Abd al-Jabbar al-Mahdi la baxay ayaa qashtaala iyo Sulaymaan ibn al-Hakam سليمان بن الحكم والله بحي المستعين بالله قلدا تاريخه waxay yiraahdaan المستعين بالسليبيين boo ay مستعين بالله ina ma haynay inta qoladaas oo ka haystay ayaa lagu wada duulay dabeetana dawladii baa ninkii laga qabsaday waxay boqortooyadii dib ugu soo noqotay markaasi wiilashii uu dhalay الحكم ابن عبد الرحمن الناصر wiilashiisii mid kamida oo ah سليمان كان هشام كيبا ولا لا كي غورغا لغو خدي جيري markuu meeshii qabsaday mahdigii jabay ayaa wuxuu la kulmay wiil la yiraahdo al-fata waadih oo aamiriyiintuna oo nimankii xaajibiinta meesha ka ahaan jiray ee laga qaaday Muhammad ibn Abi Aamir qoladu ka tirsanaa weeyaan mahdigani wuu qaldanyo qoladii uu dawladooda baabiiyay ayuu markii la soo eriyaday hadana uu yimiyo uu leeyahay ninkii amawiga aanu iskuurarka ahayn meesha ay kala qabta fatal waadix waa aqbalay laakiin waxay yiraahdeen ninkii uu xoogan yahay malak qashtaalana waa kii ka haysto meesha waa isku qabsadeen kama qaadi karnay maxaynu sameeynaa waa loo fakiray waxa la yidhaahdaa aan gaal kala raadino dabeetana mamlakatu Aragon Barcelona magaaladan la yiraahdo ayaa caasimad markaa u ahayd Barcelona boqortooyo ka dhisnayd oo qolada gaaleed ay lahayd ayaa u yimaadeen boqorkii haystay waxay yiraahdeen waxaanu rabnaa Sulaymaan ibn al-Hakam iyo xogaaga barbarka oo haysto Sulaymaan ibn al-Hakam kii meesha qabsadayna qishtaaliyiintii mooyaane wuxuu kale la qabtay meesha ma inuu soo dhaweeyay qabaa'ilkii barbarka ah oo qabaa'il aad u xoog badan oo tiro badan oo wadanka joogay kuwaas markaa sanad u ah waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay inaad nala duusho oo aad nala qabato khilaafadii islaamiga ahayd oo ay gacantayada soo gasho ninkan ay u tageen Barcelona haysta waa duwalkii yaryara ee jinsiyada bixin jiray
وعبد الرحمن الناصر جسيدة سينشري ومن بعد هنا الحاجب المنصور با جسيدة كغاد الشري نكي جسيدة بحين يبين انت وتقيم بي وحيد هذا وحن ربنا يناد نلفرته وضنكي او ماشي نلقبته امير برشلونة وحيد واصفي عن لكن بالشروط شروط باندقانية شروط سيبان يدين كل الدولية وما حيبا ليدي شروطاته والله وانا نوداس كسعوني يلا عيدا ما هيستاني وحيد عيدا مدينية وحينا كلام مركا كان ستان أنا قد دقالكو انتو السعودة بيقول مالك كستو الدقال كاسي السعونية بقول دينار وذهبية بانها وبقرطيوضة إلى هذا عشورة مالك كستو الدقالكو السعونية دولة برشلونة إلا سيا بقول دينار وذهبية كو عيدا بان دين سينيا عيدا كان دين سيا أسكاري كستو الدقال قاله waxaan rabaa hal diinaar oo dahabi ah in maalintii la siiyo askari kasto dagaalka gala hal diinaar oo dahabi ah inuu helo afar waxaan rabaa bulay dagaalka markaynu gallo ama saddex dagaalka markaynu gallo hadii aynu jabinno khilaafadii naasi wixii hub la qabsado inaan anigu qaato dawladda Barcelona inay hub ka qaadato afar waxaan rabaa buu yiri مدينة سالم لا يراهضه مدن كيو فرطي عبد الرحمن الناصر أما عبد الرحمن الثالث إن كان لورنجري دول كيو فرطيها مقالة أنا المسلمين تلاقي سووا ريتشيو أنا قاعد تلاقي قليو أفرطا شرطي هدا أقبال إنسان ويدين للدولية بورتويا دو مالتي بقول جنيه والذهبة بقول دينار والذهبة عسكري كاستو عين كاسية ولي بقى askarta wadankii wuxuu ilaamiyeen nimankii muslimiinta ah lagu duulayo wariya tatawucaya buu yidhi duulaya oo waliba lacag helayo maalin kasta hal gini baa la idin siinaya dadkii baa askar bay soo qoreen waxa la yidhaahdaa anaga duulayna la meesha lacag baa ka furantay duulimaadkii baa intiiba uu ka aqbaleen waxay yidhaahdeen intaaba waa ku saxeexanay in la duul intii markii loo saxeexay ay la duuleen waxay jabiyeen markaasi Suleymaan ibn al-Hakam iyo barbarkii la socday sidaasay Barcelona madiinadii Salim la oran jiray ku qabsatay wixii hub iyo qanaa'im la helayna qaateen ee muslimiinta laga furtay mahdina xukumkii uu ku qabsaday oo magaaladii Qurtuba uu dib ugu soo noqday muddo yar markii la joogay labadan inay soo wada duulay dawladdii hore isku dileen oo iyaga laftooda heshiis ma aha al-Fath al-Waadix baa makiida u dhigay oo mahdigiina isna uu ka takhalusay meeshii isaga isu dhigay laakiin dawlad al-Aamiriya fikradeedii buu qaato wuxuu yiri war kaliga mala lagu ogolaan maayo dawladnimadii nimankii amawiyiinta wax ka raadi المؤيد بالله هشام بن الحكم بن عبد الناصر كي غوريga ku xidhnaan jiray oo meel iska joogo soo helay markaas uu war khilaafadii baa soo dhiciya kaale mar dambu ki kameesha laga qabsanaya waa walaalkii waa Suleymaan ibn al-Hakam هشام ibn al-Hakam buu soo ka haystay Fath al-Waadix dabeetana wuxuu yiraahdaa adigu noqo boqorkii meeshii buu iska fadhiistay kiina Suleymaan ibn al-Hakam baa meeshii qabsaday waxaan leeyahay Fath al-Waadix ayaa meeshii qabsaday Suleymaan ibn al-Hakimna waa la yariyay قالديك سبي برتي سليمان بن الحكم سنوح بل الملك وقشتالة دي بقول نقو قال الآن ما تقول دي بقول لافت وحوته جاي الفانسيه كتلين شري قشتالة برجي هرنا زهاعدة مهدي جيل الردي محمد بن هشام بن عبد الجبار نكي ماشي كلا قاضي واحد يجي ماشي نلاقي قاد ده مرضى ما ربنا يندل دوشو ساسميها بل صدح عشاء يسوق بيوري صدح عشاء هلا يسوق صدح ذي عشاء وشوشيي أيو بقركي قشتاله هيستي نبو صادري قال ذي كان انقلابتي بو تجي وننو دري وحولي هل كان وحيلة شوقة سليمان بن الحكم والربعين اللي سودوا له وحوغا أنا ده بلنقادنا وان كهيا maxaan kaga hadhi karaa idinku ay siinaysan darabtaan inaan la soo duulin waxa la yidhi waxa allaaliya waxa qalcad muslimiintu leedahay waqooyiga ku yaala qaado ha soo duulin nimanka soo raacay
boqorkii qishtaale waxaanu filayn baa u soo baxay waxyaabihii la kala doorransiiyey waxaa ka mid ahaa markaa qalcadaha waqooyiga ku yaalla waaweyn ee xusuntii muslimiintu lahayd in isaga la siiyo duulimaadka ninkanna uu ka hadho wuu aqbalay markaas sulaymaan ibn alxakam duulimaadkiisii buu iska daayey isna wuxuu qaatay qalcaadkii waqooyiga ku yaallay muddadaasi kooban ee waxaasoo dhamma dhaceen aan ka warramaya waa 3 sannadood gudahood waa 400 ilaa 403 3 sannadood gudahood baa waxaasoo mashaakili dadka ku dhaceen sulaymaan ibn alxakamkii haddana barbarkiibuu dib u kiciyey meeshii ma joogin waa soo noqdeen qurtabuu soo galay magaaladii buu fasahaadiyey kufsi dumar dad la laayo wax walba wuu sameeyey ninkii almustaciin billaahi la odhan jiray la baxay hishaam ibn alxakamkiina meeshii buu ka eriyey meeshiina dib buu qabsaday waxaasoo dagaali waxay dhex marayeen waa 2 nin oo walaala ah qolabana qolo eriyadisay muddo aan badnayn ayaa fitankaasi soconayay waqti yar kadib ay qoladii barbariyiinta ninkan waday baa waxay dhaayeen horta heedha maxaynu ninkan u wadnaa maynaba meesha qabsanno intaynu wadno ninkan uma wiiga sulaymaan ibn alxakamka maynu sulaymaan kaba ka takhalusno inagu qabsanno iyana meeshii bay ninkan ka qaadeen waxaaba qabsaday meeshii gebigeediiba nimankii barbariyiinta ahaa cali ibn xamuud nin la odhan jiray waa qurtabo qabsaday walaalkii qaasim ibn ishbiili u dhiibtay dabeetana meeshii bay qabsadeen caamiriyiintii oo almurtada billah ninkii la odhan jiray la socdaa soo noqday dagaala badan baa dhacay kullu haadaa maxaanu tilmaamayaa waxaanu socdaa uun waxoogaa yar inaan tilmaamo dawaama ayay gashay dowladda islaamiga ee meesha joogtay marka ay taariikhdu maraysay 422 meelahaasi ee warkii loo adkaysan kari waayay maalinba meel mid qabsaday ee dhibtii tiro badatay ayaa qaadigii magaalada qurtuba loo yimi waxa la yidhi sida tan loo adkaysan maayo maxaa la yeelaa wadaadadii waa shireen dabeetana waxa la yidhi khilaafada baan ridna abulxasam ibnu jahwar qaadigii la odhan jiro nin cibaado badan cilmi badanna ahaa ayaa madax laga dhigtay waxa la riday khilaafadii ama dowladdii meesha ka talinaysay markii burburkeedii tiro batay dabeetana waxaa la iclaamiyey majlisu shura majlis la yidhaahdaa inuu ka talinayo qurtuba magaalada loo yaqaano khilaafadiina inay dhacday dowladdii khilaafadii islaamiga ahayd andalus ka jirtay waxaa lagu kala diray shirkaasi uu qabtay abulxasam ibn aljahwar caalimkaasi la odhan jiray iyo culammadii la socotay waxaana la goostay in majlisu shura uu ka taliyo waddankii laakiin waddanku wuxuu iska noqday waddan dhibaato tiro badan ay ka jirto qabaa'il u kala googo'an waayo waddanka waxa deganaa dad carabta deganee tirada badani gaar ahaan 2 qabiil bay u badnaayeen carab reer mudar ah oo ah carabtii xijaas ka timi iyo yaman iyo carabta qaysiinta loo yaqaano oo reer shaam ahaa waxaa kaloo joogay barbarka oo qabaa'il aad u tiro badana waxaa kaloo joogay qabaa'il ama dad loo yaqaano asaqaaliba saqaalibadu culamada taariikh dadkan ay saqaalibada ku sheegaan waxa weeyaan 3 qaybood baa loo qaybiyaa saqaalibada kuwa yidhaahdaan saqaalibada galbeedka oo waa boolandiyiinta iyo jeek iyo slovakiyiinta iyo kuwaasi kuwa loo yaqaano saqaalibati sharq oo waa ruusiya alkibaar iyo ukrainiyiinta ama ruusiya siqaar oo balorosiyiinta iyo wax la mida iyo saqaalibada junuubka oo ah yurubta koonfureed kuwa jooga dadkan intooda badani waxay ahaayeen dad waddanka jarmalku intuu duulo oo caruurtoodii wuxuuda soo qabqabsado iyo adoonnimo loo iibin jiray dabeetana mujtamac dhan sidii mamaaligtii atraakta ama masar oo kale qabsatay dad noocaasay noqdeen marka waa qabaa'il tiro badan oo iyaguna waddanka degan markii ay dhacday in dowladdii khilaafada ahayd
ay baabaado loo soo guuro majliskaasi shuurada ee culammadaas sameeyeen waxaa dhacday inaanay iyaguna xukumin magaalada intanna ay magaalada joogaan mooyaane waddanka intiisa kale aanay xukum xooggan ku haynin sidaa daraaddeed waddankii wuu kala googo'ay waxaa soo baxay 22 dowladood oo cusub andalus meel yar bay ahayd andalus waxaa lagu tilmaamaa inay ilaa 600,000 meelahaasi in ku dhadhow 600,000 oo kilomitir isku wareega inay tahay yacni waddankii soomaaliya 627 buu ahaa soomaaliya in la eg rul ahaan marka la eego soomaaliya oo 22 dowladood noqoto qiyaas reer waliba intii yareyd uu haystay intuu goostay ayuu dowlad iclaansaday marka hore 7 qabiilo waaweyn bay u kala googo'een banu cabaad niman la yidhaahdo oo ishbiiliya iyo agagaarkeeda qabsaday niman banu ziiri la yidhaahdo oo qarnaata iyo agagaarkeeda qabsaday banu jahwar oo ah qaadigaynu ka warramaynay oo isagu qurtuba iyo manaatiqda ku xeeran qabsaday bani laftas niman la yidhaahdo berberiyiina oo iyaguna qabsaday batlios magaaladan la yidhaahdo iyo inta u dhadhow bani dhanuun nimanka la yidhaahdo oo qabsaday tulaytila tolido magaaladan la yidhaahdo iyo inta u dhow bani caamir nimanka la yidhaahdo oo iyagu qabsaday balansiya ama valencie meeshan la yidhaahdo banu huud oo iyana qabsaday sarqasta ama saragoza magaalada la yidhaahdo iyo inta u dhow waa Spain tan yare arkaysaan ee Portugiiskan intan oo 22 dowladood loo qaybiyay Portugiiska iyo Spain oo la isku daray oo waliba qaybta sare oo dhan Lyon iyo maxaa la yidhaahdaa qishtaala iyo qaybtan Barcelona Aragon dawladii loo oran jiray intaasina dawlado kale Kristaan ay ka sameeyeen intii ka hooseysay ee muslimiintu haysteen ayaa waxa loo kala qaybiyay 22 dawladood taasi waxa soo baxday markaasi qabiil wal ama reer yaro waliba intuu meel qabsaday ayuu dawlad ku sheegay meel yaro kasto dawlad lagu sheegay waxa loo samaystay nin madaxweynaha oo amiirul mu'miniin sheegta ومقالة وحايستا وانا لقب كلا إذا أمير المؤمنين بو هايستا عيدا بو ليي وزير رو ليي العقب ضابع ديقارة رسمي قيمة حتو يدي سوكو يالو سفير رو ليي ودرتو نوا اللي بد دولة وحي أي شيء جرتوردن أيو شاكتي دبتنا وحي نقدين دولة يرير ولا بيا لبعتنا ولا بيا لبعتنا كوبا يعليهين oo mid waliba walaalkiisa ugu dhow ee muslimka uu iska eegayo si uu walaalkiisa u dhow muslimka ugu xoogaystana dawladaha gaalada markaas ka xoog waaweyn mid kamid ah uu dabada saaray ama se uu ku tiirsan yahay taasi waxay keensatay in gabayaagii la oran jiray al-Hasan ibn Rashid sidoo imaam Dhahabi siyarkiisa jiska 17aad safxada 144aad ku soo naqlinayo inuu gabayo yiraahdo mimma yuzahiduni fi ardi andalusa سماع معتصم فيها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد يعني قبياغا سي مسلم كابا وحلي وحيابها أن وقت جيب أندلس وحا كم دبولي دولك أندلس وحا وقت جيب مقاعيدا تراد بدن لا معتصم يا معتضد المعتصم بالله المعتضم بالله المرتضي بالله المؤيد بالله مدوى اللي لقب كيما دحتويد ولا هانجر تيبو الله بحي waxaan ka fogaaday waxa kamida buu yiri magacyada tirada badan leh ay nimankaas la bixeen wa alqab mamlakatin fi ghayri mawdi'aha bulay wa magacyo dawladeed waan laakiin meel dawladi joogto loo bixinin kal hir yahki intifakha sawlat al-asad بعض الروايات صورة الأسد بينها وسيدي بو يري ان على هذا عري جير كلي باح اسكا كعيه عري هدو جير اسكا كعيه دي اللي باح نقد مايو وبسديون انت جير كاسكا كعيسي جير اللي باح سو كيسيسي بيلي بيلا مدين يعني الدوله ده معها waxa bilaabmay waqtigan waxa taariikhda loogu yaqaano casr muluk الطوائف 422 ilaa 483 buu socday 422 ilaa 483 waa waqtiga ay la baxeen marka muluk الطوائف ملوك الطوائف oo ah qaybaha aynu soo sheegnay ee labaatanayada ku dhadhow waxay caan ku noqdeen kow dad taraf jecel bay ahaayeen oo nimcaystay wadanaad u lacagaystay oo nimcaystaba la googoostay dabeetana
waxay noqdeen bay leeyihiin dad tumasho heeso bariis iyo baastiya wax la cuno un laga shaqeeyo cunno un laga warramo mujtamac nooca u koray bay noqdeen bay leeyihiin waa mar labaadee waxay noqdeen mujtamac duwaylaad yaryara oo dawlad waliba colka ugu weynaa ay leedahay uun yahay kan yara kale u jaarka reer hebela meesha yara ay haystaan waxaa soo baxay bay yidhaahdaan munkaraadkii oo dib u soo noqday iyo fusuuq iyo wixii la mida waxyaabaha aadka u foosha xun leh soo korayna waxaa ka mid noqday dawlad waliba si ay u jirto kuwan yaryar ka midi waxay dhabarka saartay dawlad ka mida dawladihii gaalada ee roonroona ama iyaga ka xoog badnaa markaasi ayay mid waliba dhabarka saartay waxyaabaha ka sii foosha xun leh meesha tan ka soo baxay waxaa ka mid ah dawladaha yaryari intooda badani waxay bixin jireen jisya si ay u jiraan yani waxaa taariikhda ku daraasayn jirteen dawlad islaamiya oo jisye qaata kuwan iyagaa jisye bixin jiray waxaana la siin jiray meliku qishtaala iyo boqorrada kale u dhodhow ayaa jisya ka qaadi jiray duwalkan yaryar sanad walba uu cashuurta ku soo dallaciyo lacagta laga rabo inay soo diraan intii hore laga badinayo iyadoo la leeyahay waxa la ilaalinayaa nabadgelyadaada iyo dadkaaga iyo mujtamacaaga lagu ilaalinaya waxay soo baxeen boqorro yaryaroo markaa nin waliba meeshiisa sidii u xejisto un dawlad weyn oo gaaleedu ku tirsan iyadana intuu lacag siiyo uu yidhaahdo kuwan kale ama magaalo iga qaad ama igu yaro durki ama aan kan magaalo ka soo qaato waxa la isku hayoo dhammina waa magaalo aan kan ka riixda iyo magaalo kaasi ay ga riixdo xad bay gaadhay ibnu xasam ilandalusi caalimkii la odhan jiray uu yidhaahdo weedhaadu laadica wallaahi low calimuu ana fii cibaadati الsulbaani tamshiyatu umuurihim labaadaruu ilayha فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه وأود ابن حزم ابن حزم باوحو قاعدين ويداهدو إلهي بان كل دارته هدي أيو قادان بيدو كون مدحض الشيغانية عبادة السلبان كرسك إني عابدان إن الرمود وقف ضدان يانا أرنتو كوكا سعونيسو ويسك عابد أيام بيودي وضعنا ما ضحضا بيودي هدي ما أنت الله يدادو كرسك عابدان رميه سوا واكلا سهلانان أيام آد وصمير أيام بيودي ساسي درادات بيدتك مسلمين تا حرم كودي يا دمر كودي يا أبنادودي يا رقودي با iyagoo maxaabiisa loo qaadaya buu dhulka gaaleed oo lagu xidhanaya magaalooyin dhan oo muslimiintu lahaayeen baa la siinaya buu leeyahay iyo qalcado dhan oo muslimiintu ay lahaayeen oo islaamka inta laga tirtiro naaqus laga dhex taagaya buu leeyahay ilaahay dhammaantood ha nacdalo oo seef suyuftiisa kamid ah Allah ku itixaamo buu ku gabagabeeyay waa wadaad cadhooday waxa ka muuqata yani wuxuu dareemay sida ay wuxuu u jiraan